waxaan soo dhaweynayaa xilka la ii doortay oo aan jeclahay inaan sida uu yahay. galmudug madaxa kor uma qaadin labadii sano ee uu jiray taliska madaxweyne xaaf kaas oo la doortay 3 Maaj 2017. cidda lagu haysta galmudug si dhaba looma oga waxaase hoggaanka maamulku uu eedda dusha ka saaray dowladda federaalka ah taas oo iyaduna aan eedda wada qaadan haddana aan wada diidin. bisha Juun ee sanadkan sida sharciga ah waxaa dhacaya baarlamaanka galmudug kaas oo muddada xilhiintiisu ay tahay 4 sano halka sidoo kale bisha Juulaay ee isla sanadkan ay galmudug ku heshiisay inay madaxweyne doorato sida uu dastuurkoodu qabo. xaaf isuma arko inuu dhammaystirayo waqtigii u haray madaxweynihii iscasilay Cabdikariim Xuseen Guuleed. ahlu sunna wal jameeca oo maamulka dib uga soo biirtay waxay aaminsan tahay in dhismaha galmudug uu bilowday markii ay labada maamul isku biireen. dadka magaalada Cadaado waa gadoodsan yihiin waxaana ay dareemayaan in balan looga baxay halka qabaa'ilada qaar ay ka cabanayaan sadbursi. waxyaabahaas oo dhan ayaa u baahan xalin. wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa maanta tegaya Dhuusamareeb halkaas oo ay ka bilaabanayaan wadahadallo lagu xalinayo ismariwaaga galmudug. dowladda federaalka ayaa u muuqata inay hadda toos u wajahayso xaaladda galmudug. wasiir Sabriye oo dhawaan ka hadlaya arrimaha galmudug ayaa sheegay in xukuumaddu ay fahamsan tahay ahmiyadda maamulkaas ayna muhiim tahay in la helo xal uu dhinac walba qaadan karo. Cabdi Maxamed Sabriye ayaa la kulmi doona madaxweyne xaaf, wasiirka koowaad Shaakir, hogaamiyaha ahlu sunna Macalin Maxamuud iyo odayaasha deegaanka. waxaana sidoo kale la filan karaa inuu taga Cadaado oo tabasho qabta iyo xiraalo oo dagaalo beeleedyo ka jiraan. fila Soomaaliya waxay doonaysaa in doorashada galmudug ay waqtigeeda ku dhacdo. waqtigu wuu socdaa. galmudug waxay lumisay 4 sano oo muhiim ah. weli gacan looma qaadan dhulka gacanta ugu jira al-shabaab. lama dhisin xarumo dowladeed. lama tijaabin dhismaha naan maamul oo shaqayn kara. tiyo ay jirto inaan waxba laga qaban arrimaha dib u heshiisiinta. 4 sano kadib maxaa la gudboon reer galmudug?